horta dee tartanku waxa weeyaan waa dimuqraadiyadda ayna faraysa in xisbiyada gudahooda lagu tartamo waxa kale ina faraysaa dee sidii dastuurkeennaba qorayo in tartanka qofka ku soo baxaana uu noqdo musharax u tartamaya labada xisbi kale la tartamaya marka xisbi ahaan sidii gudoomiyaha xisbiga ku dhawaaqay waanu soo dhaweynaynaa waqtiga la gaadho tartanka golaha dhexe ciddii dee halkaa golaha dhexe iska dhex sharaxaysa inkastoo nimanka waqtigaa la gaadhin haddaba maalmo dhoweyd nuxnux baan maqlayey ama jaraa'idka qaar baa qoray gabooso oo isla sharaxaya cabdiraxmaan ciro waxaan ku hambalyaynayaa gabooso oo hankaa leh una qalma inuu is-sharaxo oo iska dhex sharaxa xisbiga inuu shalayto miidiya u caddeeyey inaanu totally ama ugu yaraanba la tartamaynin cabdiraxmaan ciro golaha dhexe xisbiga kula tartamaynin asagana uu dhisayo taa waxaan ku hambalyaynayaa ninka la yidhaahdo doctor gaboose oo runtii u qalma waxa kalean ku hambalyaynayaa sidaa uu u caddeeyey mabda'iisa waxaanan sheegayaa dadka aan xogagaalka ahayn ama jecelba in sidii kulmiye la isku qabsado waddani ee isku xoqeeya mas-uuliyiinta ama siyaasiyiinta waddani waxaan idin odhan lahaa suga wakhtiga golaha dhexe la gaadho tartankiisa cidda soo baxdana arka